fariisiinta midkood ayaa weydiisay inuu wax la cuno wuuna galay gurigii fariisiga oo cunto u fadhiistay. bal eeg need magaalada joogtay oo dembi lahayd goortii ogaatay inuu gurigii fariisiga cunto u fadhiyo waxay soo qaadatay weel alabastar ah oo cadar ku jiro. way isdaba taagtay cagihiisa agtooda iyadoo ooyeysa waxayna bilaabtay inay ilmada cagihiisa ku qoyso oo ay timaha madaxeeda ku tirtirto oo cagihiisay dhunkatay oo cadarkii marisay. fariisigii u yeedhay isaga goortuu arkay ayuu isla hadlay isagoo leh, ninkan hadduu nebi yahay wuu ogaan lahaa naagtan taataabatay cid ay tahay iyo waxay tahay inay tahay dembiile. ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, simoonow hal baan ku leeyahay. wuxuu yidhi, deh macallimow, waxaa jiray amaahiye 2 nin amaah ku lahaa. mid wuxuu ku lahaa 500 oo diinaar, mid kalena 50. goortii ay waayeen waxay bixiyaan ayuu labadoodiiba u dhaafay. haddaba iyama ahaan doona kan jecel badan. simoon baa u jawaabay oo ku yidhi, waxaan u malaynayaa kan uu wax badan uu dhaafay. wuxuu ku yidhi, si hagaagsan baad u qiyaastay. kolkaasuu naagtii u jeestay oo wuxuu simoon ku yidhi, naagtan ma aragtaa? anigu gurigaagan galay iyo cagahayga iima aadsiin, laakiin iyadu cagahayga ayay ilmadeeda ku qoysay oo ay timaheeda ku tirtirtay. dhunkasho imaad dhunkan, iyaduse tan iyo wakhtigaan soo galay kama dayin inay cagahayga dhunkato. madaxaygana saliid ma aad marin, iyaduse cagahayga ayay cadar marisay. sidaa darteed waxaan kugu leeyahay dembiyadeedii badnaa waa caddiin yihiin, waayo aad bay u jeclayn. kii wax yar loo dhaafay ayaa wax yar jecel. wuxuu iyada ku yidhi, dembiyadaadii waa caddiin yihiin. kuwii cunto ula fadhiyey waxay bilaabeen inay isku yidhaahdaan, yuu yakan dembiyo cafiyo haddana. wuxuu naagtii ku yidhi, rumaysadkaaga ayaa ku badbaadiyey ee nabad ku tag.